maxaa adoo sooman haddaad shaqo bulsho oo aad u qabato dadkaas oo amnigooda ka shaqaysid oo nabadgelyadooda ka shaqaysid qof kasto iyaga kamida camalkay qabsanayaan ajirkooda kala leeyihiin haddaad ajir xisaabsatid ninka masaajidka nabadgelyada kula dukaday wadada nabadgelyada ku maray oo qaraxi loo dhigayay oo dhibaatadii lagu sameeyay bambadii lagu tuurayay adigu u soo jeeday u taagneeday ka celinaysay مثل أجره هاد لهذا غير أنه لا ينقص إذن لقى نقصامين لقى نقصام ما أجره سنوى اللي يقول أذكر أجرك هاد لهذا نبي نقول عليه الصلاة والسلام عينان لن تمسهم النار الله بين دوت نار مطابط عين تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله الإله درتيس وعور ديسي نبت قليب الشديد ومضات إلى عليسي عدو أنا كإلى عليسي إلهي درتي أويدي عبس الله إنك صار عظمة الله سواء حصوصي يكون كان فيري سو كلي جيس أويي لا بد إنه نار مطابط بعد ما لين يسا نين كان يقرأ باورتك سو بوحي سو قاضي هل كان يمدي ضحايا ومدي باب يهودي أبيه ولا له كبابية الحمد لله وكفى ما أنت عمل يا بركة سنة ضحايا ومدي كذا نين كان إلى علينا يا نفتيس أهرايا أسود جيدا وهرب بالي قرحة أتاجن hadduu niyada wanaagsanaado dadka uu nabadgelyadooda ka shaqeeyay amnigooda ka shaqeeyay ilaaliyay ajirkooda koruliya Allahu akbar muujeeda subhanahu noo sheegay kaleey salaatu wasalaam waxa la rabaa marka amalkan qabanayno kulli inaan u niyeysano ilaahay dartii inaan u niyeysano shaqadan qabanayno waajib alle oo nasaaray maxaa yeelay in waxa la yiraahdaa وحفظ الدين ثم النفس مع النسب ومثلها عقل وعرض قد وجب وحاوغو هوري لا ilaaliyo diinka waay waxa ku xiga nafta maalka irdiga sharafka mujeeda waxa soo dhama la ilaalinaya diinka la ilaalinayo khuraafaadka iyo waxyaabahan diinka kamid ah inuu lagu soo diraayo oo umada lagu baabi'inayo dhiig lagu barnaysanayo iyo shaar diimad la huun laga ilaalinaya waxa laga ilaalinaya naftiya la ilaalinaya in la dilo oo la dhaawaco laga ilaalinayo oo qolada dilaysa oo horarka ahayd ayaa laga celinaya waxaana la yiraahdaa hada sawa tawxiid sanaya nimankaanu waana qarxinaya waa tawxiidku tawxiid ana tawxiidsay miiga celiyorta ana wuxuu leeyahay masaajidkan laabkiisa u fariistay masaajidka laabkiisa amarku salaada ka soo baxan nag iri ala mara alalana la ilaha illa allah rasul ku qoray oo meel suruu leeyahay qoftii wax ka sheegta yaa waa gaaluuday burtad waay farxad ula jeeda adiga maradaas tawxiidka ku qoran iyo qofkii dhahay yaa qiimo badan nabiguna uu leeyahay salaatu wasallam la zawalu dunya ahwanu inda allah min qatl mu'min adduunyadan oo baabada alla agtii ka fudud in qof muslima la dilo mu'mina kam la dilay hal maalima soo waxa lagu waa kun qofood ka badan xataa la arag hilibkoori tay aadeen markaas ay gaareen soo rogsado Axmed Aliisa asoo Ilaahay uga mahadinaya inuu dad amali barakaysan ma dhacin dadka iyaga had marka la dagaalamaysan naftana bixinaysaan waxaan rabnaa in niyada alla wanaagsado waxa la qabanayana si aan qiyaamo Ilaahay ajirka nooga hibaabin marka qolooyinka iyaga oo nooca u shaqeeya ee masaajida u fadha ee umadileynaya qofka ka difaacaya heer habin u soo jeeda ilaalinaya hurdalla haduu ajir xisaabsado ajru kiilaya waa nafti qaabka loo ilaaliyo maalka la ilaalade tuugadi xatayadi حتى كلي ما هني إن أنا ميلان من اللي جبحش إن مشارك مركو صور وحدل أو سكير مركو صور عن أنت علمي الله تدير لهاي حتى يقول لي روان كسبيد لسوق عتاني اللي يريد اللي يرادو حواجا عنك قاعد يقلب قال لاف ولا تجي حدنا اللي يرادو وأجو وخمار أجو يا وخمار أجو وحتى الصوم أجر كيس نقصامه وكميديا يا بكفاية حصير تقلقلوا مركزها لقيت كده الله نحكير خمارك حكير تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون حكوا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إنه نحدين عرضه ما أنت هداني لما بقول كل دساتو كلا لويسو سوق عقورة يكاسيو يا برتك وقلوع صاد ولا هذا برتك لكوسي وقبدي وديسي خدك هلابي صاد دلدليس يا موجده هادو سناد هيلاده الماغ waa koona qabso shaqay sameeysid kuleeda wala shaqada marka asay inta ma ido tuureeto mays albaabada tuureeysa la arka ido albaabada tuureeysa la arka
سو عداودي ما أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء سوما عداودي يعلك يصنعيبك ما أبوري ما أبوري ما كفوا قاو الدنيا آخر بيلواي صومك واكاga dheelaya ajirka tarto waakaaga dheelaya ilmahaaga waa ka dayacmayaan naftaada waa dayacmaysa indhahaaga waa kharib ilaa baalkaanad maanta dhamdayowaysa waad xanaaqsan tahay adiga dhan konfiisida tahay shaqadaad qabanaysa hawshaad umada aad u haysa waa dayacmaysa meelow ku roon yahay lawa ya marka waxaan isu dardaarmaynaa waxyaabaha daraagiska oo daroogada in la iska dhaafo fiiri wax ugu yar ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tubadir tabdiira maalkaaga ha ridridin oo meel lama ogola inaad inta ka baxsaakay anoo soon ido ahayn aniga maqaayadan tago koob iyo xabasabuusa ka dhifto ka kala tago lama anjeerayo xab koob shaah ku dhifto ka kala tag waxaas oo maal ku dheelka inaan hal mar fadhiisto wax cuno hala rabaa inaan maal meel batoog ee tago ku gooyo wixii dhamayaan kullaayo walaxan anigana wax ii tirin maalkaygina baabashay aan ku baabiyo lama ogola wala tubadir tabdiira ha ku xiga innal mubaddirina kuwa maalkooda ku dheela kaanu ikhwaana shayaatiin wariyaan naga mid inuu shaydaan walaala naga darbarto ya وكان شيطان لربه كفورا أقول نبي الله آدم أبونا آدم أسجود لي بس أسوري خلقتني من نار وخلقته من طين أنا كمان كذا سجود أقول حال يريه أديك بح يوحك الراعة نار جهنم اللي بح عليه أضوها يدارسن أو لعنة إليه كقول عادي ورجع له يوسف نمان كان عن سبب طار وباديوبي أنا وحنا أفرد يسهر وضدا توصن والله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وضدا توصن ويقول الله إذا راعة ولا تتبعوا السبل ودوينك كلو حريرون لحايو الشيطان كو idinku weeranaha aadina oo fatafarraqa bikum an sabil ila wadadiisa oo idin kala tagaan oo wiiri aan u fadhiisa war laaqudanna lahum siraadaka almustaqim halkaas isbaara khatar dhiga hurujid gooya ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم هوري يا جدال يا بدعين بدقان كويره كر وحي جاكي ما بكت كيما مكر مكر هوري يا جدال يا بدح يا بدقان يا كويران هيل ميسورين إلى كوكو سكريان حالهم قال خرج منها مدؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا أملا أنا جهنم منكم وجهنم أديك يوحي كراعة هتتك بح أدوك وحي أديك سوار عنا نار جهنم اللي يرهن لق إذن كسيه الله تبارك وتعالى يا نار جهنمنا عم النبي أو صلى الله عليه وسلم نبي سبحانه أذكي أبو طالب أو نار ير لما دق مدودان لما دملود لقى سارة مسك حديث أنا الله بريس ومتك نحن ناريات أوجر يا وعور بوت شيء أحمد عديو وعور جلجلعنا جمهين تاكت جحيم مديم أوجوك صدونا يا جلجلعنا جمهين تابته جحيم مديم أوجوك صدونا وعاكلوري حرن نكي كروك سديا ربي ما عنده نكي لروب شنا صور يهول بلادو عاجا جوبها أنا عاجا كوبها سيبته كله وعاجا جوبها قرعة مارسة كليه أقول يا عاجا قاد يسا كور ماس كور يا أن صاحبنا لهين إلهي أنا سوق وحال ربع مركا إن وقت جنّا كفائدة سن شغادات قبدي سين وشغاء أمده وشغوينك إلهي تبارك وتعالى أو أمدها ضدك قبته أجر وبلن قاضي لكن حال ربع إن الأجر حساب صد نمانك يجا أو نخربي يا ودنك هور مركا أديدي يا مالك سم بابينا يا ضدك المسلمين تتوعز مساجد يردور أفرد دي ليا صوبان وحكير عليه الصلاة والسلام وكذا هاي نمانك صورته ونمان عقل درن oo aqoon yar quraanka akhriya inta dar oo aan fahmino inta oo aan dhaafin hadalka nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam daliishta u maleeyo inuu hadalkaas iyaga daliil u yahay laakiin iyaga daliil ku ah muujeeda ya dila muslimiinta dila yaqtuluuna ahla al-islam wa yad'uuna ahla al-awthan muslimiinta bisay baabiyaan qof kale nama taabtaan gaala kama dhigsiyaan adoo saa'ima marka ee sooman ee ilaalinaya wuxuu kugu gaara ilaahay tabaaraka wa taala ku dayicmaa laakiin adigu niyada قرص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث كان سببه ليه مهاجر بن قيس نيل يراد أم قيس وحي صواب مسلم تسيت الواب بحاني مقالة مدينة هذا أسمع روح كراسيت هذا درب حاجة يموت حاجة يموت إلى درت سوبر جروري إذا درت روح جروري مركب حاجة تجي صوبان وعور عليه الصلاة والسلام أعماش وحيكون أصحراء النية ده
يصيب أو امرأة ينكحها عما ناغو إنه جورس درب درتت وهذا حالين فهجرته إلى ما هاجر إليه هجرة ديسو وهجرة ذي أو أما الدنيا دي أما مالك آخرنا الحبكم له haddaan mugo soo gala iga dhilanaan ahay oo hooyo aan rabo inaan roon diido aan boolis ku soo gala ka waran inaan 200 iyo wax dhil aan ka qaato meeleyga aan fuursho xooga dadka isku aadadaan leh hajow aan ka raboodo ajir ma keenay kulata ajir keenay ma laakiin haddaan u soo galo inaan bulshadan amnigeeda ilaaliyo waxa khaldan aan wax ka saxo ninka gardaro aan soo qabto wanaaga aan ka shaqeeyo aan dadku amni say u helaan ka waran ma la mid yahay ninka inuu ku dheeldheelo ooga oo istoorax soo gal isku mid ay naqaan isku mid naqama wax walba waxa lagu kala degay niyada lagu kala tagay marka nimanka ayaga nabiga wuxuu alayhi salaatu wasalaam tuuba liman qatalahum aw qatalu laan jannada u sugnaato qofka iigu dilan amba asagu dila nabiga taminiyay la inaan adraktuhum la aqtulannahum qatl aad aw qatl thamud nimanka ayaga dagaal uga jira waxaadna tii gaashaankii koobaad waxaad mudantiin in laydinkaga mahad celiyo waxaad mudantiin in laydinku ammaano waxaad mudantiin in laydinku abaal mariyo waxaad mudantiin in meel walba laga sheego ciidamada qaranka meel walba ay joogan qolaba meel bay ka haysaa qolaba meel ay ka haysaa waxaad mudantiin in aad heshaan adeeg la qabto oo dawladdu qabto dadka u qabato dadka ugu horeeyo in loo qabto mudan oo ilmo hore awlaadda loo qabto mudantiin laakiin waxa duruufaa jirta waxa la rabaa in lagu sabro soonkana ha loo sabro halla soomo halaga ilaaliyo waxyaabaha buriya beenta maala yacniga jarta la dhuuga qashinka waxa kale hal iska dhaaf jaad iyo sigaar hal iska leeyo wax ka soo gelaya oo adduunyo aakhira beel lahayn oo waqti lumis ahayn oo maal ku dheelid ahayn ma jiraan ku ayilimaysid ogow ya ku ayilimaysid ogow maalkaaga waa baabay ogow ilmahaaga waa qadaayana ogow qaraabo miyo ilaan qaraabada in la xiriirsho waa waajibi qaraabo hadii wax birka kaaga baahato waxaan hayaad leedahay sadin dhax shidanaysa marad jirayso iyo marad la fadhido aad naqanaysa iyo marad xooga isqalluucisay goormad adduunyo qabsanaysa marka wax kasta daroogana xal leeyahay mataqaanay ma askara kathiruhu faqalilu haram in toora badan waxay wax ku dheesho wax hore yarna وحاران وحاكا لو ليرada الخمر ما خامر العقل خمر waxa la yiraahdaa wax aqliga daboola jaadka mugan cunaa ka waran kaartadan dajaa kat ee xuuqda xaqdan ku hay aan rufta dhinac u tufaayo on leeyahay aan waxa jeexayo waxaan howhaada oo wahmiga hadhow hadaan tufana eber ay naqanayaan iyo farxad ku dhumaysa maxaas oo qosolkii beenahay u jiray eber oo naqanayo oo adiga dhan aad naqayso nin isku duusan ka waran waxaan idin leeyahay jazaakumullahu khayran sawaxsana lahu ilaykum ulamaatihin waxaan isu dardaarmayna naftayda iyo tiinaba Allah ka cabsiga inaan iyo bisha Ramadaan ka faa'iideysano bulshadana in mugal loo adeegayo la ogaado shaqadaad qabaysaan in ajirkooro kala aad leedihiin hadaad niyeysataan waa inaan niyada acmaasha aan Allah naga aqbalo inaan iyo dhibtoono hadana acmaasha Allah naga aqbali waayo bisababi niyatina waa nasiib daro marka shaqada ugu fiicnaada haysiin amniga bulshadana aad ka shaqeynaysiin dhibkoori isu dhigaysiin bulshadana ha loo dhimriyo waa leedan caayaya dhagaxa leedan ku tuuraya waxa leeyin tuugatiin baa leedan dhihi doona waxa soo dhan dhig shaqawsiina ujeedada iyo hadafka loo socdo ka weyn ah in wadankan amni helo dawlad xoog la helo dadkaanu ay nabadgelyo masaajidooda ku aadaan waxbarashada ku aadaan shaqadooda ku qabsadaan adduunyadoodana ku qabsadaan loo socda shaqadaas loo socda ka weyn caytanka iyo xagashada iyo tuugatiin adinka saana iyo waxaas dhig shaqawsiinina